waftigan balaadhan uu hogaaminayo Gudomiyaha Xisbiga Kulmiye ahnamuasharaxa jagadaMadaxweyne Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada gobolka Hawd oo ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyaasha socdaalka waftiga sare hogaanka Xisbiga Kulmiye ayaa daarana wacyigelinta diiwaangelinta codbixiyaasha jihada waqooyi ee degmada Bali Gubadle ayaa waftiga waxa kaga hortagay taageerayaasha xisbulxaakimka Kulmiye iyadoo meel fagaara ah ay iskugu soo baxeen taageerayaasha Xisbiga Kulmiye duqa degmada Bali Gubadle Cabdi iimaan jaamac barasabka gobolka Hawd Ibrahim Xaaji Xasan ayaa si diiran u soo dhaweeyay waftiga deegaanka soo gaadhay iyagoo u mahadnaqay bulshada reer Bali Gubadle sida xilkasnimada u soo dhaweeyay hogaanka sare xisbulxaakimka talada haya Kulmiye Cabdilaahi oo aadan Saleebaan Daahir Dogax oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka caasimada odayaal waxgarad haween dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Bali Gubadle ayaa si isku mid iskaga daba maray taariikhda faca weyn ee Bali Gubadle ay ku leedahay halgankii SNM iyo xoreyntii dalka iyo taageerada balaadhan ee xisbulxaakimka talada haya Kulmiye uu Bali Gubadle taariikhdiisa ku lahaa wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil Jirda Cali Shoombe wasiirka diinta iyo awqaafta Sheekh Khaliil Cabdilaahi Axmed wasiirka xigeenka warfaafinta Marwe Shukri Xariir Ismaaciil wasiirka xigeenka maaliyadda Axmed Nuur aw Shaacir Cabdi iyo wasiir dawladda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Daahir Camuud iyo mas'uuliyiin kale ayaa iyaguna madasha kaga waramay sida dalmada Bali Gubadle ay taariikh fac weyn ugu leeyihiin xisbiga Kulmiye waxaanay tilmaameen in bulshadani ay ku maadsan tahay inay hogaanka sare xisbiga Kulmiye si diiran u soo dhaweeyaan Gudoomiyaha Xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya Kulmiye Mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa bogaadin iyo hambalyo u jeediyay bulshada reer Bali Gubadle ee sida diiran ugu qaabilay deegaanka Gudomiyaha Xisbiga talada haya Kulmiye ahnamuasharaxa jagadaMadaxweyne Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka mahadnaqay sida milgaha wadaniyadeed iyo xisbinimo leh ee Bali Gubadle ay ugu soo dhaweeyeen wafti balaadhan uu hogaaminayo Gudomiyaha Xisbiga talada haya Kulmiye ahnamuasharaxa jagadaMadaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay degmada Bali Gubadle ee gobolka Hawd Ismaaciil iyo Axmed Jaamac Faarax telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Bali Gubadle